نكنا سعيد عبد الله الدني بكهذا ذكرى بارلمان حل عد كقاضي أما بارلمان عد حل كحيوبي وسجى قعن كديق له الطبد كلمة داس قعن كديق له ويرري حرنتي بارلمان كبتلان ودر وسجى ماملكم مدحوينا كاها كل أنتوا ويرري كل إلى الذي تشوكتي oo dhiigoodii oo qoyan oo aan meydkoodii la aasin haddana kuwii joogay intuu $20,000 u qaybiyey yiri codaya ilaa iyagu doonis ma lehe $20,000 intuu u qaybiyey 58 xildhibaan ayuu habeenkii wuxuu siiyey $20,000 xaqiiq ma aha waxaan been ku been abuuranayo ma aha waxaan iska mumarayo waa xaqiiq cad oo dhaba oo cadaan isagoo waxaa sameeyey oo gacan ku dhiiglahaasa oo sharci darro waan sameeyey kow weerar iyo dil gacan ku dhiignimo ah haddana laaluush hantidii ummadda u adeegsaday iyadoo waliba tiro badan oo $20,000 ku bixiyey inuu guddoomiye meesha ka saaro isagoo dastuurkii Puntland ku tuntay oo jamiyey waxa raaca haba yaraatee oo ama golaha baarlamaanku leeyahayna aan loo marin xilka qaadistii guddoomiyenimada dhoobo dastuurna aan loo marinin ma ka hadli karaa maanta dastuur baa la jebiyey ama habraac baan la marin ama cid baa xilkii laga qaaday miyaan afkiisa iyo dhagihiisu ismaqlayn ilo shiyadhow ama umulbaa miyaanu xisaabtamin miyaanu wuxuu ku hadlayo waxa kaga soo noqon kara garan karin miyaanu fahmi karin waxa uu shalay sameeyey maanta inuu cud ka eedeeyaa inay dhaawac isaga gaadhaya iyo sharaf darro iyo karaamo darro ay tahay Soomaalidu waxay ku mahmahdaa isma arkaa islaam rogay isma arke baa islaam rogay waayo ninkii shalay wixii looga sameeyey oo maanta ka hadlayo oo leh cid baa sharci darro xil lagaga qaaday anigu hore waxaan u sheegay Soomaaliyeed ama reer Puntland dani inuu marmar caadinimada ka baxsan yahay horaan u sheegay wada hadalladii horaan ku soo daray laakiin maanta uu buu maqaanti furay waayo hadduu nin caqligiisu shaqaynayo ama caqli saliimi ku jiro ama wuxuun garanaya ama siyaasadda wuxuun ka fahamsan ama wuxuun inay ku soo noqonayaan miyuu ka hadlaa maanta xil okay miyuu ka hadli karaa xil cid laga qaaday isaga oo og ama uguba gacan dheeraa 6 December 2014 Cabdiwali Sheekh ninka ugu gacan dheer oo xagga hore soo fadhiya oo aan habraacna u marin wax kale oo marin miyuu ka hadli karaa maanta xil laga qaaday ra'iisul wasaare waxaan leeyahay oo aan taa ku gabagabeynaya daniyow dhagahaaga iyo afkaagu hays maqleen ficilkaaga iyo qowlkaaguna hays waafaqeen mas'uuliyaduna sidaas maaha qofka ibnu aadanka ahi inuu ismayro ama ismasaxo waxay tusinaysaa in mentally uu wax u qabo ayay tusinaysaa intaas ayaan kaga gudbayaa su'aashaas iyada ah okay dani shirkii meesha la yiraahdo galmudug ama caasimadda Dhuusamareeb la isugu tegay wax maslaxad Puntland ama wax ajanda ah oo ka turjumaya dalka uu leeyahay madaxweynaha ka ah ama maamulka uu leeyahay madaxweynaha ka ah ma la tegay mise tororagiyo wuxuu la tegay iyo doorasho inuu ka hadlo su'aasha jawaabteedu waxay tahay waa maya lama uu tegin waxa ajanda oo Puntland leedahay lama tegin xataa ku ka hadlayay oo mucaaradayay oo baarlamaanku ansixiyay kama uu hadlin oo markuu Puntland joogay malaha halkaas xiliyo burburan ku leeyahay oo ka hadlayay xataa kama uu hadlin okay maslaxad kale oo Puntland kama uu hadlin tii taagnayd oo waliba maslaxadda ugu muhiimsan ahayd ee ardayda iyo waxbarashada ee taabanaysay Puntland arrimaheeda bulshada especially waxbarashada kama uu hadlin waxyaabihii Puntland ka xanimnaa oo mashaariicdii ahaa Puntland ka xanimnaa oo ilaa qorshaynta qaranka waxba kuma dirsan iyo uun meel la fadhiyay wixii u soo mari lahaa qorshaynta qaranka oo Puntland maslaxadaheeda ahaa waad ogtihiin wasaarad iyo hay'ad shaqaysa ma jiraan baabada u xiran waxa uu xirina waa in yada oo meesha la fadhiyo
إلا وحول بعد دولة رسمية دولة يا شيء ورشين تقرأ كي صامر الله إن يوم كما وهلم تي أرضيدا سان سوشيا كما وهلم مشاريع كلو بطلان إن وحوقبته أما الدولة دو وحسود ديسو أما أي لا شقيسو أما مشاريع قصة كما هلم وحاوكم مشكور سنة كريه دور الشدة لبكم لبعض كوية لبعض أيو كل جلاء وكل دلاء وحكى لنا كمو سوق عبد إسلام مركينا وحموتشي حاجات سجاشن دقيقة جيس كذا كريم مشتاقي ووصلوا أمان كلا دعي مدحوينها الدولة ده محمد عبد الله فرماج أو الشيء إن وحلو كذا شيء يشري أو اللي يسكدر يشري وحنا سيعني يشري وعمر كان ليارة سعيد عبد الله يدني عدة وشقيه يمام الكو حكومة مدحوينها وياهي عدة أقوم مقن هاوشي أما مسؤولية دي وهاي عدة أقوم مقن كان عندي دونتان شدوه أما مسلحة هذا أما وحب بدنا كحن توسي دونت أما دولة حكي حلو نقولها لين دونت أما عالم بقى سؤال شاس